بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دawadayaasha akhyaarta sharafta badan meel kasta joogta waan salaamay. walaalkiin Axmed Aadam weeye. maantana waxaynu haynaa laba video oo cajiib ah. labada video waa laba video oo totally kala duwan weeye oo bardo dulmiga ka sheekeynaysa iyo xaq darrada iyo cadaalad la'aanta ka dhacaysa adduunkan aynu ku noolahay, gaar ahaan caalamka islaamka waqtigan aynu ku noolahay. videogan waxaa ka dambeeya website isaga laftiisa wax yar oo cajiib ah aan ka soo saaray. videogan qaybaha carabiga u baahna waa Soomaali baan ku turjumayna insha Allah. website-kana insha Allah isagana af Soomaali baan ku turjumi doonaa. marka share garee ha laga faa'iideysto, channel-kana soo booqo siina share garee insha Allah. bismillah waa bilownay. videogan hore waa video cajiib ah. wuxuu ka sheekeynayaa videoga waad aragtaa dad suuq jooga oo wax la biriiqaysanayo, wax la dhacayo. waxa weeye maalintii iida weeye, xoolaha ama arigii ayaa moogtahay qiimahooda kor u kacay, lacagtii dadkii waxay sameeyeen bay garan waayeen. gaajaa dishay, naftii baa qabatay, dee maxay ku iidaan, maxay oka arigii baa kala dhacayaa, suuqii baa la yimi. qof kasta dee maaragtaa bal intuu wuxuu qaadi karo, qof kasta wuxuu qaadi karo u qaaday. qof kasta waka hadda saddex baad aragtay inay jiidayaan wan la carare, waa kuwa dumar iyo rag baa isdhex galay, saasaa loo ordayaa. qof kasta wuxuu leeyahay bal maanta bal wankii maanta reerka loo qali lahaa halka aan ka soo saaro. subxaan allah, waa wax cajiib ah weeye wallahi. bal daawo, bal billaahi caleyk daawo, bal dadku intay leegyihiin daawo. saddex qof baa intay hal wan isugu tageen ayay qaateen. ninka kaa xooga weynna maasha allah keligii buu la cararay wankii. waad aragtaa dumar iyo ragba. waa yara istaajinaya videoga. waxaa ii soo diray inaan u dhashay waddan carabeed weeye oo Afrika ku yaala. waddankaas wuxuu ilaahay nimco waa siiyey. bad waa haystaan, dhul waa haystaan, barwaaqo waa haystaan, beero waa haystaan, tourism ama siyaaxa waa haystaan, lacag culus baa soo gasha, waxyaalo badan bay haystaan oo khayr oo dhan maasha allah. laakiin waxa weeye waddanka waxaa laga yaabaa 2% ama 1% dadka waddanka xukuma ama askartaa sare ama dadka haysta inay iyagu u taliyaan oo wax kasta ay jeebka gashadaan, dadka masaakiinta isku sii daayaan. taasuna waa dulmi caadi weeye, waa la arkaa. waa cadaalad la'aan weeye, halkaasa laga arkaa. suuqii dadkii yani dadkii xitaa xoolaha keenay waxaan is leeyahay way baqeen, lafahooday u baqeen in iyagana la gowraco. waaba lafahooday u baqeen in iyagana la dilo. waa aragtaa imika suuqii wax allaale wixii xoolo la keenay oo dhan waa la qaatay. waa xaraam dabcan. waa yani waxan ma aha qofku inuu yidhaahdo meeshii dhib baa nahaysa oo xoolihii kor baa loo qaado, intaasu ku siin mayso. xal ma aha inuu qofkii da wixii xado. waxaan waa xaraam weeye. dad xoolahoodii baad dhacday oo aad biriiqaysatay. ninkan miskiinka ah ee xoolaha keenay waa nin miskiin ha dhici karta inuu yahay. ninkan meesha keenay xoolihiisa si uu u iibiyo, isaga laftiisa waa la dulmay oo xoog baa lagaga qaaday. yani kullo dhaalimiin bay noqdeen. dadkii kii gaajoonayey iyo kii dhibaatadu haysay iyo kii maaragtay qarash u waayey inuu ku iibsado xoolaha, dee isaga laftiisa dembi buu galay, xoolihii buu dhacay. waa lacag xaraana waxaas. wankan uu cunayo waa xaraam weeye. ilmihiisii reerkiisu buu siinaya, buu u qalaya hilibkii, waana xaraam weeye. laakiin waxaa ku kalifay dulmigii ay dowladdu ku haysay. intii dowladdu waxaan kala basirin lahayd, habayn lahayd, dowladdu waxay tiri waxaad rabtaan sameeya, cirka geeya, priceka maaragtay qiimaha kor u qaada, ha la is cuno. laakiin xaqiiqatan waa xaraam weeye. waxa ka dhacay meesha in la isxado, in la isbeeliqaysto, waa xaraam weeye. wadamo badanna waa ka dhacdaa in la isbeeliqaysto oo dad wax bartay. hadda nimankaa daawo, 4 nin daawo, dagaal feed iyo laad bay dhexay. feed iyo laad baarka wallahi waxa weligan ma arag, weligii ma arag. qaar baa xitaa mindiyo su qaadanaya daawo. xitaa askar imanaysa ama balays ama nidaam ilaalinaya ama maaragtay qaanuun ama in askar la soo diro oo dadka xaqooda lagu soo celiyo. dad masaakiin hadda la biriiqaystay, dad masaakiina ayaa xaqoodii la qaatay. subxaan allah. videoga labaad baaba cajiib ah. videoga labaad cajiib weeye. videoga labaad wuxuu ka dhacay dee dhulkii xarameenka, meeshii risaala nabiga kusoo degtay buu ka dhacay. waddankaana xaqiiqatan yani waxyaalaha qaarkood markaad aragtid shacabku say u nool yihiin waxyaala cajiibaad ka arkaysaa. bal videogan inoo shido, waa turjumi doonaa qaybta u baahan turjumada. nin baa imika ka hadlaya videoga, ninkaan dhegeysano. قولوا امين. الله لا يغيرها. ها
إلهي وحو يري وحن كرتشينا سبحانه وتعالى إنه سن معدا أن كنا الله يبرواق هذا سن نجب الدلين. خلصنا من الناقة ولابس الناس. ووقت عيد الأضحى أرجع اللي بسنية أرجع بالذهب لو قليي مركان نقول عليه هاي نوان دمني موضوعي هشة لو قليي ذهبك تانا واقد عضي تانا واكش كنتو نا فيديو جنبه قدام بيا وعير هذا حوله بلو قلينا يا ذهب وهو عجيب أو مسكح دقلي كرين يعني أرجع حوله يريه نبو يري بالذهب لو قليي وعجيبة يلبسوها ذهب لازم الذهب لمين راعي الذهب وعير ذهب قياس كله وعير ذهب قفت الدمر قفت الدمر كذهب كله وعير الدمر كله ترى كله ذهبك اللي عندك في البيت هي الذهب قفت الدمر كجوري كوشوكت إذا الذهب يدي بالذهب وعير اللي تلبس الذهب وإذا الذهب كله قليه مو البهايم ما حولها إنه قلي الذهب حسبي الله ونعم إنك ويا بسيه متى يا ناس إلى متى إلى قرمة بوير إلى قرمة أي حالك وصعنا ياهو إلى قرمة وصلت يعني إلى البهايم يعني وحالك قارين حوله لو قلي الذهب يعني إذا كان سعرها نزل فقط فيها ذهب علشان يشترون عشان الذهب يعني وحيري هدي أرجع قيمي سلوك قلي أو شبي ما الذهب لو قلني يسلو يبسده طلعوا الناس ما هم مغفلين يعني والله واحد عجيبة وياه وقت بين كنا والله ودي بدن بالودن كاس نمعدو كنا لياي برواقدو كنا لياي إلهي سبحانه وتعالى بترول كيبوسي برواقو سي إلهي سبحانه وتعالى ودن كان نمعك استواسيي برواق استواسيي ودن كان كلمة ودن بدن باجر وعين كاس حلقة يا دور كن أوقف باج ودن كان جبيك سبح حكومة الدون كاس ودن برواقدا سودن مارتي هاي استدت مساكين تاهي كنا ودن كان waxaa lagu cidhiidhi baa lagu gelinaya luqmat alciish cidhiidh in la geliyo qof miskiin ah xitaa dad baa jiraan guryo ay degaan aan haysan shaqo haysan sharci lagu cunaqabateyn la saaraya sharci ninka fiil ah ayaa kontroolaya xoog waddanka lagu ka imanaya soo dhoofaya reerkiisii faamiligiisii ka tegaya si lacag yar loo siiyo lacagtii yarad ba xitaa loo diidaya hadduu hadlana waa la dilaya marka qaarkood ama waa la tarxiilinaya gebigiisa ama waa la xidhaya waliba markaynu Soomaalida eegno wax badan bay ka dhacday wadamada Carabta ah waliba wadamada Khaliijka jeeda dad badan bay ku dhacday oo Soomaali ah oo iska masaakiin ah oo wadankoodii ka tagay si ay u ciishaan wadankaas ay wadamadaas ay tageen yani luqmat al-ciish bay raadiyeen dad iska masaakiin ah dib baa u timi ilaa uu qofku yiri maxaa meesha tan keenay sheekada kale ee cajiibka ah tan aynu eegno wuxuu ku leeyahay حفل زفاف جمل على ناقة في السعودية ودنك سعودية أور أيها وحلو ديسي هل جمل وأورك ناقنا وهشة وقيمة هدية الجمل لها 16 مليون ريال سعودي قيمة ذهب ليه يتبون وحال السيي أوركي نعم هشي وحوسيي يعني كأنه أوركي نقفي هاي بني آدم يهي أوركي وحوسيي هشة ذهب لقيمة ليه يتبون مليون أوريال بل كذا أنا آخر وتر وحكرية في حالة غريبة جدا حالة عجيبة وأن هرودعين يتم زفاف جمل يدعى عجلان أور لأنه مقعس عجلان وحالون يسي هل هشنا وحالي ردا الهنوف ما شاء الله وحيبا نقطة جور عادية ولا وقف بني آدم أي نقطة وحوله يحاسو لسعودة وتم تقديم هدية للعروس من الذهب عروسات دي وكا عروسات قروح البطن وحال السي هدية ذهب يقدر ثمنها وقيمة العقدة أي لقيمتها هي 16 مليون 16 مليون ريال سعودي وقد أقيم الحفل بمدينة الدمام مقالة الدمام بالقسمية السعودية المملكة العربية السعودية وحضره العديد من الأشخاص تدفر بدأ بايمي أروسكا يا أروسكي أوركا يوهش لو دبالدي فرحت على يا واحد لك يعني دد فنانين أو هيسا هذا عركتها بالله عليك داو بالله عليك ذهبك هاش اللي قليل الهنوف ذهبك داو دي هاشي وطاه ومش حرض يسابد مدة يا داو بالله عليك داو يعني عدالة دردو والله وحيالها يعني دهب كاسو على غيابة الدولة دن إني تاي قرش يكون بحلا وميزانية يكون بحلا هاي دولة دن أي دعي كرتا بل داو أمت دن بكو بتبادل هاي دهب كاس قولوا إيه بالله هل بالسيي قولوا هي سيا لو تبالدقية دربان كلو قراعيا واتاس حالة داسو نمان تمرنا نسأل الله العفو والعافية في إلهي سبحانه وتعالى قريضه بدن وآمن كنو الأمان كنو برواقو ينمعو يوحكس تخير لقسي كتابك قرآن بدن باكو يالا مثال لفر بدن باكو يالا إنه إلهي انت سوق قريضوت خسفي حتى قصدي نيكي صاحب الجنتين إلهي قرآن كي كو أذكري
kibirka kale yaaba dee iga waxaan anaaba iskale yaaba iga qaadi kara yaa awood sheegtay ilaahay wuxuu siiyey nimcadii ku kufriyey nimcadii ilaahay siiyey ku kufriyey waad aragteen waxa ku dhacay intaasoo qaryadood ama tuulooyin oo ilaahay u nimceeyey barwaaqada meel kasta loo keeni jiray barwaaqada nimcada ee ku kufriyey ilaahay ilaahay subxana watacaala ku khasifay oo maaragtay ka qaaday wixii oo dhan waa daa'iman waa ka dhacdaa waxaas waa cibrad ku qaadasho weeye waa ka dhacdaa wadamo badan bay ka dhacday oo ilaahay nimceeyey barwaaqo siiyey lacagta khayrka kaale arag la kibray ilaahay subxana watacaala bayna yawmin wa leyla habeen iyo maalin dhexdood ayuu ilaahay u khasifay marka wallahi wax cibrad laga qaato weeye waxaas wax cibrad laga qaato weeye intaasay naga tahay maanta walaalayaal kusoo dhawaada channelka subscribe-ka saara gambareelkana taabta si wax kastoo cusub idin soo gaadhaan siina share gareeya si ummaddeenu uga faa'iidaysato hadduu muuqaalku cajiibiyona insha allah like ha inugula bakhaylina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليك سلام الله يا خير زائر تصر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب